بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غياري ميل كاستيات joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka sportia halo maalin kasta aad kala socotaan barteena youtube-ka ciyaaraha lates tube muuqaal cusub oo xiiso leh maanta waxaan ku eegi doonaa wararka ugu dambeeya ciyaaraha siba kulamada ugu dambeeya horyaalka Premier League habeenku cali tulcay ee wila dabxan kulamada caawa ee Champions League waxaan moodeen kulamo qaarkood ay ku Argosia wow iyo waliba faraqayn kale ayaan ku sameyn doonaa kulamada caawa siba Champions League ayaan si gaar u eegi doonaa kulamada dhexmari doona naadiyaasha kala Manchester City iyo Dortmund iyo waliba Liverpool oo wajahi doonto naadiga Real Madrid garoonka weyn ee Santiago Bernabeu ay ka camalatyo naadiga Real Madrid u maamlo tababare Zinedine Zidane haddaad ku cusubtahay channelkeena subscribe noo saar haddaan naga mitana like nugu dhiirigeliso inaan la saaxiibo wanaagsan si aad u kala tiya iminka khiyaaray ku soo dhawaad wararkaasi oo fidsan haddii aan kulamada ugu dambeeya horyaalka Premier League habeenka hore cali tool ciyaaray kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo martiyo naadiga Wolverhampton ayaa waxay 3-2 direen kooxdaasi ciyaaryahan Lingard ayaa hal gool dhaliyay halkaas oo kale goolka kale uu ka caawiye Lingard ayaa mooda inuu ah ciyaaryahan ka tirsan naadiga Manchester United balse si ama u ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee West Ham United 6 gool ayuu dhaliyay soo kale 3 gool ayuu ku lug lahaa waxaan mooday inuu yahay ciyaaryahanka kaliya ee iminka la dhihi karo sidaas sameeyo naadiga West Ham United in cilli badan laga joogo hase haatee ciyaaryahan Lingard ayaa soo kale taahna ciyaaryahan aad moodo in niyadiisu ay tahay mid aad u wanaagsan ugu soo biray naadiga Harmaz dhankale kulanka kale ugu dambeeya dhexmaray naadiga Everton iyo waliba Crystal Palace ayaa moodo inuu kulanka inta badan ciyaartay maamulayaan naadiga Tovis ugu naanayso Everton hase haatee ciyaaryahan Hernandez Rodriguez ayaa gool daabi u dhaliyay kooxda kubadda cagta Everton daqiiqadii 50 kooxda Crystal waa ay dadaaleen balse maysan noqonin ugu dambeyntii waxa ciyaartay bedel ku soo ciyaarayaan Pastua ayaa goolka baraajo u dhaliyay naadiga Crystal ciyaartay ay ku soo ilaatay 1-1 dhankale Champions League hadaan caawa waxaa jira kulamo derby kulamo waliya kulamo la filaya in ay kooxon u gudbi doonaan cagayo semi-finalka Champions League kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxay soo dhaweyn doontaa naadiga Borussia Dortmund ahna naadiga ka soo jeeda cagayo dalka Jarmalka ka dhaqmaasha horyaalka dalkaasi oo loo yaqaan Bundesliga haddii aan eegno sida horyaalada kala duwan kooxda Man City ayaa hogaaminaysa horyaalka Premier League soo kale kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa kaalintii shanaad kaga jirta horyaalka dalkaasi ee Bundesliga shanta kulan ay labada kooxood kulmeen ayaa moodaa in inta badan ay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ay awood ay leedahay ama ay badisay 3 kamid ah halkii labana ay noqdeen baraajo haddii aan soo kale aan gadaal u eegno kulankani aan eegno horyaaladooda shanta kulan ugu dambeeya ciyaartay kooxda kubadda cagta Manchester City horyaalka Premier League ayay wala badiyeen halka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund iyaguna labo ay badiyeen labana laga badiyay halna ay baraajo galeen kulan kale aan eegi doono waa kulankii dhexmari doona caawa Champions League Real Madrid iyo waliba naadiga Liverpool aad moodeen labadan kooxood ay yihiin ko la dhihi karo argudshi ayaa jira kulamada ugu dambeeya labadan kooxood ciyaareen aad moodaa in naadiga Real naadiga andho Liverpool laga qaaday koobka Champions League kaasaad moodeen qaladaad uu sameeyay ciyaaryahan Ramos la dhihi karo oo inay tahay mid sabab u ah in kooxda kubadda cagta Liverpool laga badiyo lagana qaado Champions League xilli ciyaareedkii 2018 sidoo bay noqotay caawa ayaa la filayay in labadan kooxood ay is arkaan kooxdii badisa ayaa waxa soo galta jira lugtii labaad oo la ciyaari doono Champions League sida ayna waxa la yaabaa in kooxdii badisa ama ay gool badan labada lugba ay u gudbadaan cagayo semi-finalka Champions League kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa moodaa in dhanka horyaalka ay tahay ku aad u liita soo kale kooxda Real ayaa sidoo kale sida ugu dambeyntii waxaan eegaynaa caga kala horeynta gool dhalinta horyaalka Premier League weli waxaa hogaaminaya ciyaaryahan Harry Kane laacib u ciyaara kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur isagoo leh 19 gool waxaana kaalintii labaad ku jira Mohamed Salah laacib u ciyaara kooxda kubadda cagta Liverpool
oo leh 18 gool, Bruno Fernandes laacib ka tirsan United oo leh 16, halkii ciyaaryahan Bamford uu leeyahay 14, soo kaleetiya Calvert Lewin ayaa leh 14. Sportigo